madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa soo gaaray magaalada Garowe ee caasimadda Puntland. madaxweynuhu waxa uu ka soo degay halkan oo ah garoonka diyaaradaha General Maxamed Abshir Muuse ee magaalada Garowe. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu yimid magaalada Garowe ka qaybgalka shirka madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada uga furmi doona magaalada Garowe ee caasimadda Puntland kaasi oo la filayo in maalinka biriya uu furmo. imaatinka madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya waxaa ka horeeyay madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo isaguna halkan ka soo degay kana mid ah madaxda ka qayb galaysa shirka halkan uga furmaya madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka. shirkan ayaa waxaa martigeliyay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni waxaana inta uu socdo looga doodi doonaa xaaladda dalka iyo sidii ay isugu soo dhawaan lahaayeen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada oo haatan uu ka dhaxeeyo khilaaf. Jaamac Cabdiraxmaan Axmed, Universal TV, Garowe.